madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanye iyo wafdiga ballaarnay uu hogaaminayay sodaalka shaqo ku mariyay gobolada bari ee Soomaaliland ayaa gaaray magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco. Ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland ee gobolada bari ayaa ah sidii xogogaal ugu noqon lahaa xaaladda dhabta ee shacabka Soomaaliland ugana hirgelin lahaa madaxweynaha Soomaaliland mashaariic horumarneed oo dadku baahi weyn u qabeen, kuwaasoo mashaariicaasi ay ugu weyn tahay wadada ballaaran ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Sanaag oo dhismaheedu muddooyinkii u dambeeyay uu socday meel fiican maraysa ilaa waqtigan. Madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa ka qadayay maanta magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Intaasi kadib wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa uga keentimay dhinaca gobolka Togdheer, waxaana si diiran madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa loogu soo dhaweeyay degmooyinka Sheekh ilaa Burco, waxaana duleedada degmooyinkaasi kaga hor imanayay madaxweynaha Soomaaliland maamulka heer gobol iyo degmo eejidahaasi iyo weliba shacabka kala duwan ee ku dhaqan degmooyinkaasi, kuwaasoo wadada hareeraheeda la taagnaa caleemo qoyan, sacab iyo weliba ereyo u gaara wafdiga madaxweynaha Soomaaliland uu hogaaminayay oo ay kaga qayb qaadanayeen soo dhaweyntiisa. Wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii dambe soo gaadhay magaalada Burco. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Silaanye ayaa markii uu soo gaadhay magaalada Burco waxaa loo galbiyay dhinaca xarunta madaxtooyada ee magaalada Burco, waxaana la filayaa in maalinta berri oo halkaasi ka sii wado sodaalkiisa shaqo ee dhinaca gobolada bari. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.